waxay ahayd maalin mugdi ah markii kooxo hubaysan ay raasas la dhaceen laba ruux oo walaalo ah sidoo kalena ahaa saaxiibo aad isugu dhow shaqo wadaagna ahaa. waxay kaalin ku lahaayeen dib u dhiska dalka iyaga oo ahaa injineero aqoontooda aanan dalka uga tagin duruufaha kala duwan ee uu ku sugnaa darteed, balse hadafkoodu ahaa inay naftooda u huraan bulshadana uga faa'iideeyaan aqoontooda. haldooradaas hiilka u ahaa dalka waxay kala ahaayeen injineer xaaji maye cali iyo injineer muumin daahir macalin oo labaduba dishay gacan ka xaq daran 16 bishii 8 1428 hijriga oo ku beegneed 29 bishii 8 2007 milaadiga. waxay anfariir ku reebtay dadka deriska la ahaa dadkii deriska la ahaa qoyska, ehelka iyo asxaabtii ay lahaayeen. dhacdadaas oo rajo aan wanaagsanin u noqotay caruur haysatay kaalin muhiim u ah noloshooda iyo mustaqbalkooda. allah u naxariistay injineer xaaji maye cali iyo injineer muumin daahir macalin waxaa lagu aasay qubuuro ku yaalay xaafadda oo ahayd aabagado ee ka tirsan degmada Dharkeenley. sanad kadib waxaa dhacday in dad ay deegaansadaan halkii ay ku aasnaayeen oo ay kula duugnaayeen marxuumiin badan. kadib waxaa dhacday in laga soo saaro xaaji maye cali 21 bishii 7 1429 hijriga oo waafaqsan 25 bishii 7 2008 milaadiga, waxaana lagu aasay beerta Sheekh Luqmaan ee degmada Afgooye. waa mid ka mid ah dhacdooyinka urkutaalada ku reebtay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan intii garanaysay marxuumiinta iyo intii kale ee maqashay xasuuqa lagula kacay. allaha u naxariiste. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. walaalayaal aan u wada duceyno iyaga iyo intii kale ee xaq darrada lagu dilay.